ninkan odaga ooyayahay waa macallinkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wiilkii xasan sheekh maxamuud ayaana shaqada ka soo eriyay shaqadu dawladda u hayay fahan hadalka ninkan odaga ee ooyayahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud buu macallin u ahaa iskuulka waxuu soo bari jiray dawladda ayuu u shaqeynayay kadibna wiilkii madaxweynaha ayaa shaqadii ka soo eriyay asaga dhageysanayna marka hadalkiisa dhageysanayna sababta shaqada looga soo eriyay meesha ay wax marayaan waa nin 10 sano soo shaqeynayay khibrada ugu sareysa leh walaa waa yaab wadankan markaad xaaladiisa eegto dhan markaad ka eegtana waad yaabaysaa dhanna xoogaa baad rajo ku galaysaa bal marka hore ila dhageyso ninkan odaga ah waxaan rabnaa inaan cadaalad la helno oo ninkan cadaalad uu raadinayo la helno ila dhageyso waxa dhacday ayadoo faanahayn madaxweynaha jamhuuriyadda aan ixtiraaman jecelna aniga macalin u ahaa ana wax u soo dhigay iskool bintur October u dhiganay ma fahamtay maantana wiilkiisa ay raacday shaqada ay raacday Dr. Cali Cabdi Nuur waxa uu sheegayaa in uu ahaa macallinkii wax soo baray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud codsi xaqiiqan raba Soomaaliya ahaan madaxweyne la ilmeenayaa in laga ceyriyay shaqadii uu ka hayay bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya BHDS isaga iyo koox kale oo bangigaasi ka shaqeynaysay xaqayna hana la siiyo muwaadin Soomaali qaar ka mid ah shaqaalaha bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya BHDS oo ay shaqada ka joojiyeen maamulka cusub ee bangiga ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ku cambaareeyay go'aankaasi ay ku tilmaameen mid dulmi cad ah waxay si adag u dalbadeen in si degdeg ah dib shaqadooda loogu soo celiyo shaqaalahan oo qaarkood khibrad dheer u lahaa shaqada tababaro ku soo qaatay dibadda iyo khubaro ku takhasusay beeraha iyo kalluumaysiga ayaa mas'uuliyadda shaqo ka joojinta dusha ka saaray gudoomiyaha BHDS Marwo Hodan Cusmaan iyo agaasimaha guud mudane Aadam Xuseen Roble waxay ugu baaqeen inay dawladda iyo hay'adaha ku shaqada leh arintan faraha la soo galaan lagana sameeyo guddi madax banaan oo baara dulmiga lagula kacay sida ay sheegeen waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha shaqada laga joojiyay oo ay ka mid yihiin Dr. Cali Cabdi Nuur iyo Fuad Xasan Cali hal doon aan wada saareen waqti dib leh oo aadan dhihi karin shaqaalan ahay aan soo shaqeynay dad asxaabteena ah waa ku geeriyoodeen alxamdulillah rabbil caalamiin sida uu warhaysiin waxa way dagaal sukeeyay markuu dhacay oo wadanka la kala cararay waxaan ahayn dadka u dhabar adeegay shaqadan anaga ma ku bilaabin wax anaga aan sameeyno ma ahan madaxweynaha iyo madaxdii horukac sameeynaysi ayaa noo yeeray waxa loo baahday dad wax wadi karo oo shaqeyn karo oo khibrad leh ilaan dagaal sukeeyay haduu dhaco kulli wadanka oo dhan waa loo kala tagay waxa timid 00 waxa loo baahnaa in loo keeno dad farsamo yaqaan annaga waxaan nahay dad farsamo yaqaan dad technoor karatana bangiyada kale waa ka duwanna bangiga horumarinta macnihiisu waxa waaye horumarin xag dhaqaale beero horumarin xag kalluumaysi horumarin xag beeraha intaasan ku soo takhasusnay si wadanka aan wax ugu qabanno waxa dhacday in wixii oo dhan 114 aqaana ma ka akhrisanaya timid sheekadii niman yaryar oo dhalinyaro ah oo hadda ka soo baxay 2000 iyo xoogaag jaamacada ka soo baxay ayaa xilka loo dhiibay annagoo 46 sano 47 sano khibrad leh oo aan rabnay inaan wax barno aan nagala diiday anigu waxaan ahaa jaamacadda ummadan macallinka ahaa oo baraan baahaba aniga si wax loo baro dadka sida wax loo hagaajiyo waxaan ku dhaaranaa wallahi inaysan aqoonin 1 hektar meeqa mitir square way ma yaqaanin dadka wax u sheegi lahaayeen waxaan sameeynaa waxyaalo badan oo capacity building shaqaalahan hadda maanta shaqada laga raacday oo laga fariisiyay waxa ku jira dad tagay Ethiopia dad tagay Kenya mashruuc weyn oo waxa jira kalkiima la yiraahdo meesha lagu soo qabtay maxuu ahay Turkiga lagu soo qabtay waxyaalo badan dad dhisanay ahayn ala kulli xaal annagana intaan waxba aan isdhaafsan jirnay nin odayaha yimid hadda waxa waa qofka wuxuu aqoonin waa indhow ka rida moogta wixii meesha joogay oo ka soo horeeyay oo ka khibrad badnaa dadkii wuxuu yiri shaqada idinka fariisiyay sabab ma sheegin wiligood dad aan gooyin shaqada aan ka dhuumanaa jiran goosmo maxaa waa dad aan wiligood ka daahin shaqadood
oo xilkas ah oo soo shaqeeyay oo dhisan lagu doortay nin yar oo shala soo baxay oo new graduate hadda jaamaca ka soo baxay xigmadii iyo way aragnimadii iyo waxgarashadii iyo hawshu sidii lagu wadi lahaa waxbana nalama weydiinin waxa la yiri kaalay imaada warqad ana ugu horeeyay iyo nin kale waa noola yeeray idinka u weynaaliyay labadiina kaalaya warqadan saxiixa maxay taa warqada ma akhrin karnaa maya warqadan saxiixa maxaan ku saxiixnaa waxa ku saxiixaysiin in shaqada la idinka fadhiisiyay oo aad tihiin lay off macnaheedu ma taqaanaa yiri lay off macnaheedu waa naqaanaa annaga waa dad laga maarmay bangiga annaga ma naga maarmaa may dadka beeraha ka soo shaqeeyay oo warshadaha ka soo shaqeeyay oo waxaan soo sameeyay waxa ugu daran maalmaha ka mid ah waxa igu dhacday anoo marayo maxaa warshada baasada agteeda mid askari wuxuu yiri wariyaa ka bax meesha markaasaan maxaan uga baxa wallaahi hadaadan bixin xabadan kugu dhibcina xabad la isku dhici ma jirto waa ku dila ما يفهم ريسكيغاس يخطر تسن سومر بنجي سهله iyada xuquuqdeena la qaatay mishaarkii la igu handaday saaxiib xaasaan ahay waxa yiri saddex bilood jooji اوكي ويا ما هاي ويا حق بالله لا ينام marka waxa dhacday in la iga saxiixay waxa dhacday iyadoo faanahayn madaxweynaha jamhuuriyadda aan ixtiraaman jecelna aniga macaan u ahaa ana wax u soo dhigay iskool bintur October u dhiganay ma fahamtay maantana wiilkiisa ay raacday shaqada ay raacday ninkan odaga aad arkaysaan waxa uu leeyahay inaga bangigan shaqada aan u hayno waan u soo dhabar adeegnay qubaraan 46 sano shaqeynay u leeyahay 46 sano oo shaqeynay oo qabiir ah wixii oo dhan bangiga horumarinta marka la leeyahay dhanka beeraha xasbu ka shaqeeya dad aan maaragtay lahayn khibrad ayaa la keenay buu leeyahay waqti badan oo soo dhabar adeegayo naftayda risk u gashay saaxan waa iga dhinteen buu leeyahay marka intaas oo waqti ah ayaan geliyay reejan ka lahaa xuquuq baan ku lahaa wiilkiisa inta yimid wuxuu yiri iyadoo wax riisan alla sheegin wax sabab iyadoo la sheegin alla yiri waraaqdan saxiix shaqadana ka tag magdhow ma jiro sabab kale ma jiraan wadanka marka si uu eegto waxa la dareemayaa xogaa amnigu inuu soo yara hagaagay waxa la dareemayaa in maaragtay xogaa dadku ay soo wax fahmeen dhanka kale marka la eegana hoosta la iska cunaya sidaas baa la isu cunaya hada ninkan wuxuu leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa macalinkiisa ahaa bal maanta madaxweynuhu macalinkaagi hadii aad sidan ku sameynayso oo waalidkaagi labaad ah hadaa sidan ku sameynayso oo aad adigoo og yaani adigu markan ku leeyahay sidan ku sameynayso tay sida ku sameeyaan oo aad maqasho dabcan muuqaalkan kilibkan waa arki doontaa macalinkaaga dibka gaaran waa ogaan doontaa hadii aad wax ka qaban weyso cid kale wax ma gashid waxna u qaban maysid cid kale oo wax qabanaysaa ma jirto marka wadankeena u duceynayna markasta kama aanan quusan marka ka quusanayno in ilaahay tawfiiqdana waafajiyo hormariyo insha Allah khayr aad bad ma santiin saaxiibayal hadda nagu cusub tahay muuqaalka like sar hadaan saarin nagu soo biro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh